nin dhalinyaro ah oo dhakhtar ah oo lagu yaqaanay wanaag iyo alla ka cabsi. Maalin maalmaha ka mid ah asaga oo galayo isbitaalka uu ka shaqaynayay ayaa waxa uu arkay nin da ah oo araggiisu daciif yahay oo wado islaan da ah oo ku fadhiso kursiyada curyaamiinta. Waxa ayna u muuqdeen in ay sugayaan qof. Markii uu shaqada dhamaystay maqribka kadib, waxaa la yaab ku noqotay in ay weli meeshoodii joogaan. Waxa uuna wejigooda ka dareemay walwal iyo cabsi. Waa uu u dhawaaday, waxa uuna ogaaday in ay sugayaan wiilkoodii oo ka tagay oo u soo laaban. Carabkoodana kama suulin inay ugu duceynayaan in uu ku soo laabto si nabad ah. Inta uu agtooda taagnaa dhakhtarka, odayga waxa uu aaday xagga maqaayadda. Dhakhtarka waxa uu aaday xagga odayga. Waxa uu ogaaday in uu rabay caag biyo ah, laakiin waxa amakaag ku noqotay markii uu ogaaday in uu haysan wax lacag ah. Waxa uu warsaday in uu biyo u iibin karo, laakiin waa uu aqbalay asagoo xishoonayo. Waxa uu u soo iibiyay cunto iyo caagag fara badan oo biyo ah. Inta uusan ka tagin dhakhtarka, islaantii waayeelka ahayd waxa ay u dhiibtay dhakhtarka waraaqad. Waxa ayna ku tiri waxa ku yaalo nambarka wiilkayga. Waxa ayna ka codsatay in uu u waco si ay ugu xasisho una ogaato sababta uu u soo daahay. Dhakhtarka waraaqadii ayuu ka qaaday, waxa uuna ku arkay 5 nambar oo kaliya. Waxa uu ku yiri islaantii waayeelka ahayd, hooyoy, waa ka xumahay, nambarkaani ma ahan mid saxan. Si la yaab leh ayay u fiirisay. Waxa ayna ku tiri, sidee ku dhici kartaa? Wiilkayga waxa uu i siiyay nambarkan iyo taleefankan si aan ula xiriiro marka uu soo daaho. Waxa uu ka qaaday dhakhtarka taleefankii ay wadatay. Waaba taleefan qadiim ah, aysan ku jirin wax dab ah iyo laftoona. Waxa uu naftiisa iska yiri, xasbunallahu wa ni'mal wakiil. Wiil yahow caasiga ah. Waxa uu qariyay dareemihiisa. Waxa uuna ku yiri, waan wacay, laakiin taleefankiisa waa uu dansanaa. Waxa ku saa'iday islaantii cabsi, ayadoo u baqaysa wiilkii beerkeeda ka soo go'ay. Waxaana ka soo daatay indhaheeda ilmo, ayada oo alla ka baryayso in uu weelkeeda waxba gaarin. Dhakhtarkii waxa uu ku nagaaday agtooda. Aabahana waxa uu ahaay markasta uu arko gaari madow oo soo socdo, mid wejigiisa u birbirqa sidii cunug yar. Waxa uuna u cararayay xaggooda asagoo dhahayo, waxaa imaaday wiilkayga. Laakiin waxa wax laga xumaado ah in uusan wiilkiisa ku jirin kuwii imaaday. Markii uu weydiiyay askarigii iridda isbitaalka taagnaay aaway wiilkoodii, waxa uu u sheegay in wiilkoodii iyo xaaskiisa ay ka soo dejiyeen 9 subaxnimo gaari. Wuxuu kaloo u sheegay in gaariga guriga duqooshinka uu imaan doono xoogaa kadib soo u qaado. Wuxuu ugu dhacay hadalkii dhakhtarka dhagihiisa sidii biriqdii oo kale. Xoogaa kadib waxaa soo gaaray gaarigii guriga duqooshinka soo u qaado labadooda. Inta aysan gaarin, waxa uu ku qaaday gaarigiisa. Waxa uuna go'aansaday in uu odayga iyo xaaskiisa gurigiisa geeyo. Waxa uuna u sheegay labada waalid in wiilkoodii uu ku maqan yahay safar shaqo, uuna maqnaan doono waqti dheer. Bil kadib markii ay ku nagaadeen guriga dhakhtarka, waxa uu yimid wiil ooynayo. Waxa uuna ku yiri, waxaan ahay wiilkii labadiisa waalid ku caasiyoobay. Sidoo kale waxa uu yiri, shaydaan ayaa igu caawiyay in aan ku raaco xaaskayga dalabkeeda oo ahaa in aan geeyo labadeyda waalid guriga duqooshinka. In badan ayaa raadiyay ilaa aan ka ogaaday waardiyaha isbitaalka in ay agtaada joogaan. Waxaan rabaa in aan arko oon qabsadana labadooda lugood si ay ii cafiyaan. Wax kasta oo aan lahay waan waayay. Midda kale xaaskayga waa ay jiratay marka aan caasiyay waalidkayga. Rasuulkii alle run buu sheegay sallallahu alayhi wasallam markii uu yiri, waa la nacladay oo naxariista alle ayaa laga fogeeyay qof kasta oo caasi ku noqdo labadiisa waalid. Waxa uu dareemay dhakhtarka in uu wiilka dhab ee ka tahay hadalkiisa, uuna si sax u soo tooba keenay. Waxa uu u sheegay in labadiisa waalid aysan ogeyn in la geey rabay guriga duqooshinka, una sheegana labadiisa waalid in uu ka soo laabtay safar shaqo, rabana hadda in uu geeyo gurigiisa. Say u farxeen labada waalid markii ay arkeen wiilkoodii oo u soo socda, deedna ka shumiyay labada gacmood. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan haddaa ka heshin muuqaalkan like saar saan u ogaano inta qof ee danaynaysa muuqaalada noocan oo kale ah. taasina waxa ay noo horseedaysaa in aan sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad daawanaysid channelka Cabdixaliim Cali, fadlan subscribe saar si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeya aan soo dhigi doono. Fi amaanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.